كل الدليل يكون عربي أي نقطة والله بالله مدحتو يدي بنتلان وانا أيانا ما أنت مركي أي ديجان كله وريجين سبحان كده وحى الله باللعبين باريتانو يمين باريس markii لا ugu فادي horeysayna waxaa gudaha loo galay xaruntii kaydka رك دالا qaraxyada iyo farsamada ee kooxda Daesh kooxda قول waxay قول lahayd بودلان dhowr meel oo mid kasta ay الواحد ahayd فيرها meelaha qaraxyada iyo sidoo kale laga abaabulo shirqoolada waaweyn ciidamada difaaca markay gudaha u galeen durba waxa ay kala furfureen بل هذا miinooyin محن iyo فير qaraxyo ay kooxda Daesh halkaasi ku diyaarisay waxa cuntada iyadoo wada ogeyd meeshay tahay deegaankan in la soo weerari doono sidoo kale ciidamada difaaca ee Puntland ayaa burburiyay kaydkii qaraxyada iyo saldhigii ugu weynaa ee shabaab ay ku lahayd kooxda Daesh haddana waxa si buuxda gacanta ugu dhigay oo halkaasi ka talinaya kooxda waa dabcan ciidamada difaaca ee Puntland laakiin waxa yaabka خير badan ee الله maanta سي lagu arkay halkan waxa ah in madaxtooyadii dhamayd maanta gudaha loo galay waliba maanta meesha la galay waxay ahayd بل هذا كور meel xataa ay kooxda deegaan ka dhigatay oo ay boorar u samaysatay boorar farsamaysan oo calankoodii lagu sawiray kadibna la leeyahay meeshaan بسم amar la'aan lama soo geli الله karo الرحمن yacni waa madaxtooyadii dhammayd maanta meesha la galay الرحيم sidoo kale xogta maanta ciidamada ay heleen waxay sheegaysaa deegaan kasta in hogaamiyaha kooxdan ninka la yidhahdo cabdiqaadir muumin uu guri ku lahaa meel kasta oo kooxda saldhig u ah guri ayuu ku lahaa taas يا marka waxay ka dhigan tahay ninkan yacni waa nin gacna ku gambad ah oo habeenba meel ku hoyda بل هذا welibana كفيري habeenka caawa meeshuu ku hoyda aan habeen dambe ku hoyan karin ciidamada difaaca ee Puntland ayaana maanta toos gudaha ugu galay deegaankan iyaga oo sidoo kale soo bandhigay cudud ciidan قول iyaga oo بودلان قول fashiliyey shirqoollo iyo xog ay kooxda lahayd waxaa la burburiyey guud ahaan madaxtooyadii kooxda Daesh ay halkaasi ku samaysatay ee madaxtooye ku sheeg ahayd ayaa sidoo kale gabi ahaanba lasoo afjaray oo ay ciidamadu maanta ka taqaluseen haddaba dagaalka Puntland ay kula jirto kooxda Daesh runtii waa dagaal aad iyo aad u xoog عاديات بان dagaalka معها Puntland iyo بان kooxda معها قول Daesh الله ee سي dabcan ka بودلان dagaalamaysa سكرتين dhulka وقول buuraleyda bari ee Calmiskaad marka laga hadlayo runtii waa dagaal aad iyo aad u weyn Puntland ay in muddo ah qorsheynaysa inay qaado duulaan midkii ugu cuslaa oo kooxdan ay ku soo afjarayso kooxda Daesh ee Soomaaliya oo ku sugan gobolka bari waxaa hogaamiyay cabdulqaadir muumin waxay si rasmi ah uga go'day kooxda al-shabaab sanadkii 2015 waxayna deegaanka ugu weyn ay ka dhigteen buuraleyda Calmiskaad ee gobolka bari ee Puntland maamulka Puntland ayaa dagaal adag kula jira kooxdaas iyo markaas iyada oo dagaalyahanadooda kooxda Daesh ay u adeegsadeen weeraro toos ah ciidamada difaaca ee Puntland ayaana markasta kooxdan ka hortagayay oo dagaal culus الله له واقوليسنا سومالي هتان Puntland ما شاء waxay الله sidoo kale ugu jirtaa داي kooxdan داي sidii ay ka hortag بلدي ugu ألعبتودا samayn lahayd بلدي Puntland waxa ay dagaal adag oo dagaalo badan ah kula gashay buuraleyda gobolka bari waxay ka shaqaysay sidii ay kooxdan usoo dabarjari lahayd iyadoo u adeegsatay Mareykanka iyo sidoo kale dowladda federaalka ah ee Soomaaliya si duqeymo loogu sameeyo kooxda Daesh waxaa marar badan la fuliyey duqeymo lala beegsaday hogaamiyaasha kooxda taasoo hoos u dhigtay awoodii kooxdan ay lahayd Puntland maxay tahay marka sababta ay kooxda Daesh u doonayso inay la dirirto kow amniga waa mid koobaad Puntland waxay rabtaa inay ilaaliso xasiloonida deegaankeeda maadaama Daesh ay بين معها قول الله سي قول الله سي xoojinta argagixisada waxay Puntland u sahlaysaa inay maalgashadayaal caalami ah hesho بين معها xiriirka caalamiga ah sidoo kale waa qodob kale Puntland waxay doonaysaa in lagu aamino la قولست dagaalanka argagixisada si ay u hesho taageero caalami ah Daeshka Soomaaliya ka dagaalanta haddaba maxay doonaysaa inay buuraleyda bari u isticmaasho saldhig istiraatiiji ah oo weyn inay canshuur ka qaado ganacsatada iyo dadka degan meelaha ay gacanta ku hayso iyo in ay u muujiso dunida inay weli awood badan oo weliba tii hore ka weyn ay leedahay markii ay daciiftay awoodii Ciraaq iyo Suuriya ay kooxdan ku lahayd haddaba dagaalka weli A new year and a new adventure with the perfect Chevy to take you anywhere with pure power. wuxuu u muuqdaa mid sii socon doonana aadna u xoogaystay waxaa la aaminsan yahay قولست بودلان قولست سوماليا هلا الله هيلي بودلان Puntland iyo saaxiibadooda ayaana weli wada duqeymo iyo weeraro qorshaysan oo ka dhan ah kooxda
iyadoo weliba duqeymaha kooxdan ku socda ay yihiin kuwa cir iyo dhul ah oo si toos ah kooxdan loogu abaaro dagaalka puntland iyo daacish waa mid istaraatiiji ah oo saameyn guud ku leh gobolka puntland waxay isku dayeysaa inay ka hortagto halista kooxda daacish halka kooxdaasi ay doonayso inay sii noolaato inkastoo puntland guulo badan ka gaartay dagaalka weli kooxdu ma dhammaan oo waxay weli khatar ku tahay ammaanka guud ee alaabta u taala bal fiiriyo dalo ayaana hadda u muuqata in puntland ay tahay maamulka keli ah ee la dagaalami kara kooxdan iyo meesha ay sida gaarka ugu awood badan tahay kooxda daacish haddaba gabagabada barnaamijka waxaan rabaa daawadayaal inaan kusoo gabagabeeyo maanta furimaha hore ee dagaalka waxaa la gaarsiiyey taageero lagu taageerayo ciidanka saadkii ciidanka dad ayaa xoolo ugu deeqay iyo in ay u muujiso dunida inay weli awood badan oo weliba tiwada ka weyn ay leedahay markii ay daciiftay awooddii ciraaq iyo suuriya ay kooxdani ku lahayd haddaba sii socon doonana aad waxaa la aaminsan yahay in daacish ay weli leedahay xubno badan oo ku dhuumanaya buuraleyda puntland iyo saaxiibadooda ayaana weli wada duqaymo iyo weeraro qorshaysan oo ka dhan ah kooxda iyadoo weliba duqaymaha kooxdan ku socda ay yihiin kuwa cir iyo dhul ah oo si toos ah kooxdan loogu abaarayo dagaalka puntland iyo daacish waa mid istaraatiiji ah oo saameyn guud ku leh gobolka